shirkadda dhinaca cuntooyinka fudud ka shaqaysa ee McDonald ayaa shaaca ka qaaday in ay la kulantay khasaarihii ugu ballaadhnaa ee muddooyinkan soo wajaha kadib markii ay dhirbaaxa kulul kala kulantay suuqyadii ay ku lahayd caalamka islaamka gaar ahaana gobolka bariga dhexe. saamiyada shirkaddani ayaa hoos u dhacay boqolkiiba 40 iyo markii lagu bilaabay ololihii alaabteeda lagu qaadacay kaasi oo ka dhashay taageeradii ay shirkaddani la garab istaagtay ciidanka Israa'iil ee duulaanka ku amarinka madaxa fulinta ee shirkadda McDonald Chris Kamsinski ayaa xoog uga deeriyey xaaladda dhaqaale iyo khasaaraha shirkadda ku yimi isaga oo sheegay in aanay wax isbeddel ah rajaynayn tan iyo inta uu dagaalkaasi dhammaanayo. meelaha ugu badan ee shirkaddani dhirbaaxadu kaga dhacday waxaa ka mid ah dalalka Maleesiya, Indoneesiya, Hindiya, Shiinaha, Waqooyiga Afrika iyo Bariga Dhexe oo ay ku lahayd boqolkiiba 5 ka mid ah laamaha ay caalamka ku leedahay. maamulka shirkaddu waxa ay ku doodayaan in aanay qayb ka ahayn dagaalka ka socda Gaza balse lagu qaaday olole lagu dhabarjabiyey isla markaasina lagu curyaamiyey dhaqaalihii soo geli jiray taasi oo keentay in uu si weyn hoos ugu dhaco faa'iidadii bilaha ahayd ee ay shirkaddu soo xarayn jirtay. fariinta uu diray madaxa fulinta ee shirkadda McDonald ayaa u muuqda mid si dadban ay shirkaddu ugu dalbanayso in la soo afjaro dagaalka muddada 4 bilood ah ka socda marinka Gaza kaasi oo saameeyey dhaqaalaha shirkado ku eedaysan in ay dhinac taageereen gaar ahaana shirkadaha caanka ah ee Starbucks, Coca-Cola iyo Pepsi kuwaasi oo dhammaantood la kulmay dhirbaaxa xanuun kulul oo ay ku dhufteen muslimiinta caalamka iyo cid kasta oo ka soo horjeeda duulaanka ka socda marinka Gaza. shirkadda McDonald waxaa la aasaasay bartamihii qarnigii hore gaar ahaana intii dunidu la tacaalaysay dagaalweynihii labaad ee adduunka iyada oo marba marka ka dambaysa sii noqonaysay shirkad aad u koraysa isla markaasina uu magaceedu meel walba gaadhay. in ka badan 40,000 oo xarumood ayaa ay shirkaddani ku leedahay goonyaha caalamka iyada oo sida oo kalena maalintiiba iibisa tiro dhan 6 bilyan oo cuntada fudud ee hambeegarka ah. ku soo dhawow suuqa Sambaysi oo ah kan ugu ballaadhan ee isku xidha qaaradda Afrika iyo suuqa adduunka. Sambaysi waa suuq casri ah oo adigoo gurigaaga jooga kuugu keenaya wax kasta oo aad ka dalbato website-ka sambaysi.com. waxaad si fudud wax uga iibsan kartaa website-ka Sambaysi adigoo adeegsanaya Mastercard, Visa Card, Zaad iyo iDahab. la jaanqaad dunida casriga ah ee dhanka internetka u wareegtay. sidoo kale waxaad si fudud uga dukaamaysan kartaa abka cusub ee Sambaysi adigoo kala soo degaya App Store iyo Play Store.